سميسانينا تيراميسو oo ukun la'aan ah oo xabad ukun lagu darin insha Allah oo si sahlan loo sameeyay asxaabtayda waxaan u baahanahay aan isticmaali doono waxa weeye double cream ama whipping cream waxaad u aqaantidba waxaan ku shubayaa nus koob oo sokor ah intaas ayaan isku qasaynaa marka hore asxaabay waxaan ku xijinayaa mascarpone waxaan kaloo ku shubayaa vanilla laba qaado oo vanilla ah saan diyaar ayuu noogu yahay shaqadii kale ayaan bilaabanaynaa asxaabtayda qaaliga ah asxaabay waxaan ku shubayaa laba qaado oo koofi ah kadib waxaan ku shubaa biyo kulul waxyar ayaan sugaynaa inuu noo qaboobo asxaabay kan waxaa la dhahaa sponge finger marka insha Allah sponge fingergan af Soomaali ma garanax lagu dhaho asaga waxaa sameynaa qaxwadii aan isku qasayna ayaan dib garanayaa ama aan gelinayaa waxyar ku yara daayne kadib halkaas aan saaranay asxaabay qofka kafeega dhibayo wuxuu sameysan karaa caano intuu kululeysto ayuu gashan karaa ama maxaa la dhihi jiray biyo qandace saadu aragtiin kan koowaad waan dhameeyay kan labaadaan hadda saarayaa waxaan korkooga shubayaa laba qaado oo kakaaw ah ama shukulaato saa ila socdo asxaabta qaaliga maasha Allah sheekadeena waan soo dhamaysanay waxaan yiraahdaa alaabtan ka war doona waa alaab inaba aan caadi ahayn waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontiin dhammaantiin waa alaab maasha Allah ah inaba aan caadi ahayn fridge-ka ayaan gelinayaa waa inuu hal maalin frinjeerka uu ku jiro marka hadda maadaama aan dhamaynay shaqadiisa insha Allah frinjeerka ayaan gelinayaa bari uma ka soo bixinaa ilaa hadduu idmo waxaan rajaynayaa maanta inaad ka faa'iideen tiramisu oo maasha Allah si fudud loo sameeyay oona ukun la'aan ah haddaa igu cusub tahay ha iloobin subscribe inaa isiisid gambaleelka on ka dhigatid sifa video kasta aan soo geliyo uu ku dhaafin aad daawadaha koowaad u noqotid asxaabtayda qaaliga waxaan leeyahay like waa dhiirigelin share dhe insha Allah sifa walaalihiina kale uga faa'iidaan sida adiga uga faa'iida camal asxaabtayda waxaan leeyahay intaas video ku xigo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh fi amaanillah